horey idinku ballan qaadnay maanta waxaanu ka hadlaynaa mid ka mid ah trading viewga sida loo isticmaalo. marka kasoo qaad inaad trading view accountkaaga soo furatay. marka trading view waa informationna fara badan, dhinaca bidix, dhinaca midig, gudihiisa warar kale iyo arrimo kale laga helo. maanta waxaa keliya rabnaa inaan wax yar idinka tusno trendline, see suuqan loo saartaa trendline, waqtigana aan idiin badbaadino, maalinba in yar saa idinku soo tuurno. marka videogeena la soco, subscribe-ka noo taabo, suulkana dhag ka sii, gambaleelkana ku xiro haddaa ka hesho videoyadeena. aad iyo aadna waa uga mahadnaqaynaa haddaa intaa samaysid. okay, marka suuqan oo kale hadda imid waxa weeye hadda waan iska soo qaatay euro USD baanu soo qaadan. it's just chart waa isku mid, ama crypto ha noqoto ama forex ama stock market. marka aad timaado weligaa suuqa ka bilaabin 1 hour inaad trendline saarato, ama aad 1 minute aado, ama aad sida maarta aad u saarato suuqa saa u raadiso 1 hour oo kale saa u raadiso. isku dayin suuqa meel kore ka soo bilaabo. waxa fiican weekly oo kale inaad ka soo bilowdo oo aad tiraahdo suuqan baan rabaa jihadiisa inaan fahmo. kor u socday, wuu soo dhacay, kor u aaday, wuu soo dhacay, haddana ma noqon doonaa. sidaana la rabaa inuu qofku u fikiro. wax walbana waa mindsetka weeye. mindsetka qofka ayaa wax walba horta ay guul iyo khasaaraba waxay ku xiran yihiin saa u fikiraysid. haddaad ku fikirayso negative, dee negative baad la kulmaysaa. haddaad positive ku fikiraysana positive. so suuqa marka waa inaad aragtaa pictureka guud saa u aragto. so calaamadan baad tegaysaa xaggan mid ka mid a tan keliya maanta waxaan dhama sharxayna, mid keliyaan sharxaynaa. trend line baan soo qaadanaya, halkana laga helaa. waa midda lagu sameeyo trend lines, xariiq guud saas u dheer ama saan u dheer baa u dhigan kartaa, kor iyo hoos u socda saa rabta u dhigaysa, dadab u dhig. so trend line baan soo qaadanaya. suuqan baan rabaa inaan fahmo oo aan ogaado wejiguu leeyahay. so trend line-kayga aan soo qaatay, halkaasaa ka saaray. so maanta dhan inaan cabiro oon lugaha isku aadiyo, waqtiga isaga dhumiyo, 10 daqiiqo dul fadhiyo maahan. inaan booba dhahana maahan. waxa weeye inaan fahmo inay 3 meel ii taabatay, jihadan ma waqooyi baa loo socdaa mise koonfurna inaan kala fahmi karo. waqooyi oo kor ah, koonfur hoos ah. koraa loo socdaa mise hoos. meelahaasaa saartay, jihadu waa iska caddahay. suuq wuxuu socda xaggaa iyo waqooyiga. hadduu hoos aadana xaggaa iyo koonfurta. suuq kacsan oo waqooyiga u socda oo qiimale weeyaan. marka sida markaa u saarto waxay iga taabtay 1 2 3 way iga taabtay. way ugu filan tahay waa itusta jihada suuqa. kay waxaan rabaa haddana bal inaan ogaado suuq oo hoos u socda see lagu fahmaa isagan. suuq hoos u socda sidana leeyahay. saasaa u saaranaysaa, ama waxaad ka saaraysaa fiiqa hore ama dhumucda baa saaraysaa halkaas. hadda waa suuq hoos. okay, suuqan oo kale markuu saan yahay baa waxaa lagaa rabaa inaad qiyaasto hoos miyuu aadi doonaa. ayaduna sidaa uma sii adko sida loo malaynayo. so horizontal line soo qaado, trend line-kaagii halkan oo kale markuu marayo waxaas leedahay ma soo noqon doonaa, shaki baa kaa galay, ma sii socon doonaa. halkanna waa meel kor uu ka tegay uu ka soo dhacay. so halkaasaan saaraya. so suuqu halkaa waa laga soo celiyey. halkanuu yimid waa laga celiyey, wuu jabsaday, si fiican buu u jabsaday, wuu ku soo noqday. hadduu ku soo noqdo kor aado wuu sii soconayaa. hadduu sii yaro dhaafana waa suuqaas uu sii daatay. so iyaduna waa trend line kale oo horizontal. marka suuqa sidaabaa jihadiisa trend line-ka looga saartaa. marka trend line-kuna markaa kor ka soo saarato waxa weeye fikirkaaga, maskaxdaada u fikir suuqu ayadoo trend line saa yahay inuusan ahayn wax toosa, oo inuu yahay saas oo kale trend line-ka dushiisa u kor noqonayo. inkastoo hadda weynka uu line-ku tusay, waxaad fahantaa suuqani inuu marnaba ahaynba wax toosan. taa maxaa noo caddaynaya? annagooba meel hoose sii aadin baanu tegi karnaa 4 hour.
ama dailyga waan tagno because weekligu waa data badan waaye. So haddaad eegto suuqa si fiican u eegto waxaad arkaysaa inuu ka gudbay linekaagii daayina wax yar buu ka saarnaa si waka uu ka soo gudbay guduhu usoo dhacay. soo marna suuqa u fikirin inuu yahay wax sidaas oo kale ah, waana u fikirtaa inuu yahay wax saa u qalooca oo qaloocaasi uu ku jiro. oo wax walba waa mindsetka sidaan u yiri, mindsetkaagu yaysan noqonin suuqu marna ma ahan wax iska toosan oo hariiqma iyo ulo iyo maantan ayuusan waqti kaa lumin. marka trend lineka sidaasaa loo dhigtaa, halkaasaa tegaysaa, halkaasaa lagala soo baxaa, wuxuuna ku tusaa jihada suuqa. nuxurkuma aha in cashar dheer oo dheer aan meesha ka dhigno, waxa weye inaad fahanto sida loo fikiro suuq u fikiro, jihadiisana loogu helo, waxaana lagu helaa trend lineka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.